waxa ay soo gaaraya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu madaxweyne axmed madoobe ugu hanjabo ama ugu agajugleeyo madaxweynahan kaan dhinac dhisaya mashaariican kaa xayiraya wallahi waa la yaabay 2025 qofka axmed madoobe ugu hanjabaya ama ugu goodinaya mashaariican kaa xiranaya iyo madaxweynahan kugu ag dhisaya ma oga miya in 14 sano axmed madoobe dagaal aan lagu qaadin aynan jirin ugu dambeynna isaga kaliya soo haray mashaariic laga xayiro axmed madoobe waxba kama bedelayso horay ayaa looga xayiray madaxweynahan kugu dhinac dhisaya oo Jubbaland kalaan sameynaya waxba axmed madoobe loogama qaadayo waxaan ogahay Kismaayo gudaheeda in tiro ka badan 5 madaxweyne laga dhinac dhisay madaxweyne axmed maxamed islaam ugu dambeynna isaga soo haray dagaal lagu qaaday waxba loogama bedelin sidiisii u taagan yahay hadda qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud fashil buu ku dhamaanaya madaxweyne xasan sheekh waxba ugama qaadi karo dagaal axmed maxamed islaam axmed madoobe waqtiga baa ka lumaya mooyaane markii uu ku soo hingoobay madaxweyne xasan sheekh safarkiisii Kismaayo waxba uu ka soo kordhi waayay madaxweyne axmed madoobe saaxiibadiisii siyaasadda ayuu xalay isugu yeeray wuxuu uga warbixiyay wixii uu kala soo kulmay magaalada Kismaayo wuxuu uga warbixiyay diidmadii adkayd iyo go'aanka axmed madoobe oo aan isbedel lahayn wuxuu uga warbixiyay sida dawladihii isku soo dhaweynayay axmed madoobe iyo xasan sheekh sida ay ula safteen madaxweyne axmed madoobe wuxuu sheegay inuu ku soo fashilmay magaalada Kismaayo halka wado u furan ay tahay muddo kooban in uu go'aan ka qaato madaxweynaha Jubbaland isla markaana uu dhiso New Jubbaland iyo madaxweyne cusub oo la geey doono gobolka Gedo wuxuu yiri 20 maalmood gudahood ha lagu dhiso maamul la yiraahdo New Jubbaland 20 maalmood inta aynan dhamaan bishan 10aad 2025 wuxuu yiri madaxweynaha ha laga dhigo wasiirka amniga gudaha fartaan waana in maamulkaasi garbaharay la geeya 5 maalmood oo maanta ka bilaabanaysan habraac la soo bandhiga waa doorashadu sida ay u dhacayso 5taas maalmood markii la soo bandhigo inta ka hartay waa 15 maalmood in toos loo aado doorasho toosa madaxweyne ku xigeen golo baarlamaan aniguna waxaan ku dhawaaqi doonaa inaan aqoonsaday ugu dambeyn bisha 11aad ee November 2025 wallahi waa wax lagu qoslo waay wax la yaabo waay madaxweynuhu haddaad axmed madoobe dagaalkaasi ku qaado anaa ku sheegaya wallahi shacbiyadu ku helaya waxa uu kasban doonaa axmed madoobe dad hadda ka sii jeeda wuxuu soo jiida doonaa reer Jubbaland oo ay dhici karto qaarkood inaysan hadda ku qanacsanayn shacbiyad ayuu helaya xusuuso madaxweynuhu dagaalkan lamida ayaad ku qaaday axmed madoobe 2012 nooc kasta ayaad axmed madoobe u weerartay duruuftu waxay kugu kaliftay 12 September 2015 inaad cagahaaga magaalada Kismaayo aad ugu tagto maxaad ka bedeshay axmed le soo haray dagaal labaad aad la gashay hadda markii aad natiijo weysay muddo ku dhow 1 sano Kismaayo aad ugu tagtay wax natiijo waad soo weyday meel aad u dhaqaajisaa weyday dagaal labaad hadda doonaysaa waxa ku harayna waa 6 bilood iyo 15 maalmood ma dhama xitaa 7 bilood dagaalka marka aan 7 bilood wax ka yar inaad axmed madoobe ku soo afjarto oo maamulku ag dhisto waxa ay noqonaysaa riya maalmeed oo aan haba yaraatee mira dhal noqon doonin laakiin waxaan la yaabanahay shacabka iyo waxgaradka gobolka Gedo ee shalay markaad Kismaayo aadaysay aad ku tiri joojiyo hawsha aad wadaan axmed madoobe ayaan rabaa inaan la heshiiyo ma ka aqbali doonaan inay mar labaad ku soo dhaweeyaan ma laga yaabaa dadka gobolka Gedo degan inay haddana ka dhageystaan New Jubbaland aan idin dhisaya mandate-keyguna 6 bilood ka dhiman cidii ka dhageysata oo waliba ka qaadatana ma ogtahay in muddo ka yar 6 bilood arrintu hadday dhinac kale isku rogto in maamulkaasi uu noqonayo baqaarsaar aan waxba ka jirin madaxweynaha aad rabto inaad garbaharay ku dhisto oo New Jubbaland muxuu kaga duwan yahay madaxweynayaashii aad Kismaayo ku dhistay teeramkii hore muxuu kaga duwanaanayaa madaxweyne aad Kismaayo ku dhisatay ayaa axmed madoobe wax ka qaban waayay bal ka waran madaxweyne aad garbaharay ku dhisto muxuu ka bedeli karaa axmed madoobe waxay qayb ka tahay riya maalmeedka maamulka xasan sheekh maxamuud ee ku aadan Jubbaland anagu cidna
qabiil ku riixi mayno ama ugama soo horjeedno cidna qabiil ku taageeri mayno gaar ahaan aniga oo cabdullaahi balwaana laakiin xaqa iyo xaqiiqda lagama tallaabsan karo axmed maxamed islaam dagaal kastoo lala galo isagaa soo hara ama nacayb u qaad ama taageer ama mucaarad ku noqo go-aanka adigaa iskale laakiin waxaa xaqiiqo ah axmed madoobe inaan waxba laga bedeli karin waqtiga unbaa ka lumaya inuu axmed madoobe xasan sheekh dagaal toosa la galo wejiga labaadna wuxuu noqon doonaa fashilka halka sane ee lasoo dhaafay ee jubbaland dagaalka lagu waday wiilalna ay ku dhinteen qaarna ay ku dhaawacmeen waqti iyo hanti fara badanna ay ku baxday ugu dambaynna natiijo laga baxayo bal qiyaas dagaal 11 bilood aan waxba looga bedelin axmed madoobe sideeba 6 bilood wax looga bedeli karaa qiime madaxweyne xasan sheekh dagaal uu la galay axmed madoobe lixdii bishii tobanaad 2024 dagaalkaasi wuxuu fashilmay lixdii bishii tobanaad 2025 maalintuu axmed madoobe muqdisho ka soo tagay taariikhdu waxay ahayd 6 bisha tobanaad 2024 madaxweyne xasan sheekh markuu kismaayo ka tagay shalayna taariikhdu waxay ahayd 6 bisha tobanaad 2025 waa hal sano natiijo la'aana hanti fara badan lagu bixiyay dhaqaale badan ay ku baxeen waqti ku lumay dhalinyaro ay ku baaba'een eber ka soo bilaabay noqoto 6 bilood marka maxaa laga helayaa oo laga waayay muddo sanada way noo muuqataa marka xalay markii uu la kulmay madaxweynaha saaxiibadiisii siyaasadda wuxuu ku yiri u diyaar garooba dagaal jubbaland ka dhana gaar ahaan madaxweyne axmed madoobe u diyaar garooba uu yiri in la dhiso new jubbaland waana sida ugu dhaqsiyaha badan in looga dhisaa garbahaarey waana in 5 maalmood gudahood aad habraaca doorashada soo bandhigtaan 15 maalmoodna aad ku dhamaystirtaan maamulka jubbaland intaa kadibna wuxuu sheegay dhaqaale intuu hayo inuu ku bixi doono dhismaha maamulka jubbaland waxaasoo ciila waxaas oo kibir ah waxaa ka keenay markii uu kismaayo tegay wixii uu la soo kulmay madaxweyne axmed madoobe markuu ka aqli badi waayay ilaan axmed madoobe waxaa la qorsheynayay in kismaayo inta loogu tago loo seexseexdo loo qusquslo kadibna la yidhaahdo wax walbaan kuu samaynayaa ku noqo madasha wadatashiga qaran anigana waxba hay xujaynin xujo waxaa ka wanaagsan inaad tagto magaalada muqdisho madasha ka qayb gasho wax alle iyo wixii mashaariic oo ka xayirna waa ku fasaxayaa la mid noqo qorqor iyo cali gudlaawo iyo lafta gareen علشان mandate ko ka dhamaaday kismaayo iska joog axmed madoobe wuxuu yiri inta aan cuni lahaa wax aanan aniga ii qalbin waxa wanaagsan aan sharaf ku noolaado bal fiiri mandate kaagii ka soo tag ee noqo qof sharci darro ku jooga kismaayo waxyaabo ajiib waay oo ummadda Soomaaliyeed ay la yaabeen waliba xitaa wafuudii Kenya iyo Ethiopia ka socday waxay la yaabeen doodu meesha ay taalo muxuu doonayaa madaxweyne xasan sheekh wuxuu rabaa in uu madaxweyne axmed madoobe uu jubbaland joogo si lamida lafta gareen cali gudlaawo iyo qorqor mandate mar hore ka dhamaaday wuxuu leeyahay marka aniga dooqayga waa inuu madaxweynuhu asagoo aan mandate haysan maamulkiisa maamusha axmed madoobe wuxuu ku doodayay war inta aanan sifo aanan ahayn sharci ku joogi lahaa aan ku joogo sifo sharci ah intaasoo xasan sheekh maxamuud ka soo carooday laba annagayna hortaala shacabo axmed madoobe dastuur ku taagan yahay iyo nidaam dawladnimo oo sax xasan sheekhna wuxuu rabaa dooqiisa in la qaato annagu marka dooqa xasan sheekh ma noodana mase dastuur iyo nidaam dawladeed ma waxaynu taageernaa dooqa madaxweyne xasan sheekh mase waxaynu taageernaa dastuur iyo dawladnimo Soomaaliyeed oo toosan haddii jawaabtu tahay dooqa madaxweyne xasan sheekh waa u sacbatumaynaa haddii jawaabtu tahay dawladnimo iyo dastuur ayaan rabnaana waxaan nala gudboon hadba ismihu meesha uu yahay mid iga qora ama dawladdu cirka ha gasho ama dhulka ha gasho wallahi inuu soo waxba uga qaadi karin madaxweyne xasan sheekh maxamuud dagaal uu axmed madoobe la galo xaqiiq waay wixii aan soo aragnay ayaa tusaale noogu filan axmed madoobena looguma hanjabo mashaariican kaa xiraya cunaqabataynan ku saaraya madaxweynan kugu dhinac dhisaya waxaasoo dhan horaa loogu sameeyay axmed madoobe waxna waa looga qaadi waayay maanta haddii 2025 aan dhahno axmed madoobe aan ugu hanjabaynaa mashaariican kaa xiraya madaxweynan kugu dhinac dhisaya jawaabtu waxay noqonaysaa intaas horaa loogu sameeyay wax kale ma haysaan bal isha ku hay dhaqdhaqaaqa madaxtooyada dagaalka cusub ee Jubbaland iyo Filla Soomaaliya u dhaxeeya aniga warbaahintayda munaafiq ma ahay
runtan sheega waana xaqiiqo dhaba mar kastaba aniga axmed madow baan la safanahay sababtu isku qabiil ma nihin laakiin waxa weeye wadada saxan uu ku taagan yahay warbaahintayda ku jeclow ama ku nac waa difaaca adag ee madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe mowqifkeygana waa cad yahay mar kasta barnaamijyadeeda waxaad ka daawan kartaa kala socon kartaa haddii aad doonayso wararka xaqiiqda ah facebooka pageka cabdulaahi balwaan iyo youtubeka cabdulaahi balwaan waa labada qaybood ee warbaahinta aad mar walba kala jaan qaadi karto barnaamijyadeeda youtubeka gal ku qor cabdulaahi balwaan haddaad facebooka iga daawanayso linkigana kor baan kuu soo dhigay muuqaalka facebooka aad ka daawanayso kor ka fiiri linkigaas ku dhufo youtubekaasi gal subscribe saaro si aad ula socoto barnaamijyada haddii aad ku xiran tahay facebookiga pageka cabdulaahi balwaanna falow garee si aynan kuu seegin barnaamijyada aan halkan kasoo gudbiyo dagaal adag wejiga labaad xasan gurgurta waa looga adkaan doonaa waan hubaaye ka mid noqo saaxiibada ka hortagaya wixii wax u dhimaya nidaamka dowladeed iyo dastuurka dalka